السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دواد النورية ميديا وأمر كله مدل كله إياه مرتي كله برامج كانوا عنكو إيه إنه كلنا كل ما نضد يوم عنكا هيا وحى ومرتنا وقوة اللبا شلا أو جيجا سومالي عنكا ونجمع الدون إياه بولو بلوغورين عنكا بلابو لنكي جمديك وحافظة بولو بلوغورين كسر دواد النورية ميديا يوم قال الله سبحانه waan ku dhowahay Nuuri Media iyo magaalada Lascaanood bal waxaan uga warantaa intaynaan barnaamijka u guda gelin haddii aan ka bilaabo magaca bulo magacaaga saxda miyaa ay hooyayaaba kula baxeen mise waanaanis aad la timaado magacaan waxa ii bixisay ayeedeyda Allah u naxariisto marka yaraanteedina magac kale waa la dhihi jiray marka magaca iyo shaqada isku keekay waag hore waan nabcaa jiray in la yiraahdo bulo oo inta badan dadka dhalinyarada way nacabiyeen magacyaalka weyn in lagu waco laakiin markaan maaragtay social media aad u soo galay waan jeclaaday waa macnaheedu shaqadayda iyo magacayga isku ekaaday okay waayahay magaca bulo kulli magac marka la bixinayo sabab iyo ujeed baa loo bixiyaa magaca bulo muxuu xambaarsan yahay maxaa ka dambeeya magaca bulo waxa la igu bixiyay abootadii baa la dhihi jiray ayeedeyna saas ila jeclaatay macnaheedu waa oo la ekaaday waan garanaynaa eeg hadda bulo ujeedkiisu macnaha ma aha inaanu markaan ku leenahay magacii kale noo sheeg ugama jeedno ama ugama soconno inaanu magaca kaa qaadno kan waa runoo saaxadda de social media hadda waa kula jirtaa aniga laftigayga de magacayga waa barqad laakiin naanistaan social media ku maro de waa Nuuri Media saasay tahay hadda marka su'aalaha ugu badan la weydiiyo magacaygii waa barqad baan laakiin naanisteeda sheegaa hadda markaan ku leeyahay magacaaga noo sheeg dadyo badan bay iska weydiinayaan qofku isagoo laga rabo u dhici karto inuusan bulo kugu yiri magaca caadiga is weydiinaya maya magaca caadiga qofku wuxuu isku weydiiyaa khalad ba because markii aan imid ilaa saacadaaba magacaygu bulo ahaa ilaa haddana yaraanteedina waa ii bixiyay ilaa hadda markaa soo weynaaday oo dadku igu jeclaadeen bulo liira sababtay magacayga ugu sii baahan yihiin marka maxay tahay iyo baahida weyn ee u qabaan waayahay haddii aan intaan kaga gudbo su-aasheeda labaad aan gudbiyo waxaa weeye waxaa jirtay inaan dugsi ama goobo waxbarasho aad soo martay sax bulo miyaad ku xaadir jirtay goobaha waxbarashada markaa joogay aad baa yaraanteeda u nibcaa waataan ku yiri magaca bulo magacayga kalan ku xaadir jiray waagaas okay nala wadaag magaca laftiisa aan yaraa may kulma wadaagi karo waxaan kugula wadaagi karin dadku maba igu jecla mana igu yaqaanaan maanta magacayga sitaan kuu sheego qof bilaadan oo ama ii yeeri kara ama haddeer anaa haddii lasoo jeediyaaban ama aqoonsan karinba anaaba isku aqoonba haddeer waqti xaadirka okay waay haddii aan usoo noqdo bal ugu horreyn najmaan kusoo dhawow Nuuri Media iyo magaalada Lascaanood waa dhawahay walaal aad baan kaaga mahadcelinayaa si sharaf leh noo soo dhaweysay waan ku dhawahay magaalada bal waay kolley waa ujeeday gabadhan dhankayga midig fadhiday adiga saaxiibtaaya waraysiga aan la yeelnay adiga iyada waad ka darantoo laba magac bay isu kaa saaran najmo iyo cudoon maxay isu keenay anigu iyada waa ka duwanaho kan waa kii la igu wanqabay aniga najmo laakiin cudoon waa mid gadaal iiga baxay oo dhalinyara ila jeclaatay idinkoo kale ah waa kana okay waay sababteed uu ka baxay cudoon maxay kaala jeclaadeen markaad iyaga ay kuu bixinayeen ma weydiisay uma tiri macnaha magacani muxuu salka ku hayaa ilaan ujeed baa loo baahaya magacani uu ku yimi okay muhiim maaha xaraf Soomaali ah ama Soomaali in la ii sharxayo maadaama ahay Soomaaliya aan ku sii socday waxaan tiri maxay dadka ku bixiyay macnaha ku bahalkay kulay in ila jeclaadeen aaminsanahay marka waxaan u arkaa in aan ku celiyo maxaa ka wadaan iyo taas way jecelkooda kartay okay waay inta haddaan kaga imaado su-aasheeda labaad ee aan u socday waxa weeye najmo cudoon waa tuma cudoon waa aniga kula fadhiyo shacabkana u sheeg waa ii daawanayaan waa ii jeedaan cudoon waa aniga najmuudan waa aniga ku hor fadhiya de wax kale aan kaaga sii falanqeeyo kulay ma garanaya dad wax su'aal qabin okay waayahay bal ugu horreyn waxaan dala wadaagtaa walow hadda aad dhalinyar tahay social mediana aad ugu jirtid taariikh nololeedkaaga oo yaro kooban noloshayda aad bay u badan tahay qof baa weyn baana halkeen rabtaa inaan kaa jahil bixiyo aan kaaga sheekeeyo dhan walba dhanka socialka hadday noqoto dhanka shakhsi ahaaneed ba hadday noqoto kolley sida la wada ogyahay anu waxaa gabadha reer Muduga dalka ayaan ku dhashay dalka ayaan ku koray ku barbaaray talentigayga halkaasaan kusoo bilaabay ilaahay halkaan inaan ka baxbaxanahay laakiin inta ugu badan ayadaan ku suganahay dalka ayo okay waay
xeerkaaga waxbarasho intee u gaarsiisan yahay heerkay waxbarasho macnaha heerka aan waxbarashaad ka gaadhay aan dugsi sare ka baxay bas okay waayahay dugsi sare waad ka baxday maxaa kugu dhaliyey inaad noqotid ama aad isku daydid inaad caan ka noqotid baraha bulshada waxa aniga aan hay ama waxaan maanta aniga ay dadka iima magacaabayaan anigu waxaa aaminsanaha dadku ayagu inay iga dhigeen sida anigu aan ahay dadka iga dhigay magacan uma dalban okay waa run adigu ma dalban laakiin ficilkii baa la tiri okay sax taalantii wax la dhahaa jira waan gartay taasna ilaahay baa bixiya laskama doon doono marka maadaama la arkay dee waa khasbiyana laygu taageeraa waa kaa okay waaya markii aad kugu horreysay inaad social media kasoo muuqato carqaladii ugu badnaa ee aad la kulanto dhan walba ama dhanka asxaabta ha noqoto ama dhanka faamiliga ha noqoto bal iyagana nala wadaag walaala wax caqabada dee waa garanaysaa gabarta dhaleen baan ahay weliba ee dhashay hooye aabaa dhalay way iska jiraan wax culeys ah laakiin wax cabiidin ah oo ma jirin waa kaasa waayahay intii markii aad bilaabaysay ma jirtaa cid garab kugu siisay ama kugula talisay inaad sii wadid oo bahashan aad heer ka gaadhid iyaguna ma jirtaa horta anigu shaksi ahaantayda kow markaan soo geliyey keligay maana ku bilaabin oo dhalinyaro reer mudug ah baan la bilaabay kuwaasoo igu dhaliyay in aan wax la duuduubo ilaa iyo hadda anigu inta meel soo istaago goonidayda ma jecli waxyaalaha aan sameeyo dhan dal baan u arkaa ee dhalinyarada asxaabtayda marka maadaama aan taalanti leeyahayna aan jeclahay gobolkayga inaan heerka gaara isna heer gaarsiiyo saas la adigeed baa waxduuba kullo ma soo dhawo adiguna waa dhawa walaalo waxaad nala wadaagtaa warbixin yaroo kooban ee asal ahaan taarikh nololeedkaaga oo kooban xagga uu ka bilowmay aniga taariikhdayda markaa laga hadlo kulle magaalo ugu badnaano qof reemiya ahay baadiyan ka imid waa adigu wax hal sano oo kala magaalada jooga markaan saa u imid oo caag anoo wata saa magaalo usoo galaan igu yiri taalanti baan leedahay kole wax duubitaan baa ku fiicnay marka caagaygaan iska qaatay ilaa haddana adigu halkaas sano hadda aan ku jiro inaan maaragtay wax matala ama dadka aan ka qosliyo waa halkaas sano kooban sidaas baan dadka ugu qosliyaa okay maxaa kugu dhaliyey inaad isku dayday inaad bulshada soomaaliyeed aad ka qoslaysid mise adigu ma adigaa isku arkay mise ficlo ama dad kale taageerada dad kale kala kulantay ayaa kugu dhalisay wallaahi qof maanta igu yiri hore u soco taalantii baa leedahay baadiyaa lagama yaqaana saa og tahay laakiin markaan aryahoo kala raacno meelaha iskugu tagtagno aad baa dadka ugu qoslisiin jiray qof walbana ugu qosli jira u ka heli jira waxyaalaan sameeya magaalada markaa imidna hadda wixii waxyaalo kasii fara badan baa imaanaya dadkii aan aqaanay baa maaragtay waxyaalahaas ugu qosli jira dad aan aqoon markaa u imaaday ay kasii badnaanaysaa cadaadisku intaas marka aad marka sida igu qosqoslaya ana waxaan arkaba inaan maaragta waxaan wax ka samay karo ama dadka usoo bandhigi karo oka waayahay heerkaaga waxbarasho waxbarasho intee buu gaarsiisan yahay waxbarasho wallaahi aada maaragtay usii fadhuguma gelin mar baan shanaad gaaray kadibna waan dhacay waad ku dhacday waan ku dhacay shanaadii anigu ku jiro oon kolla lixaad baa gelaysaa ciyaal balaaya qoortooda iyo sura awal 3 jira 4 jiraan meel la fafadhiyeen baa buugyo qalalano iyo kana dhowliyaan tag hoostaada bilaabay diilaayinkii laleeyahay markaan aan bilaabayaba social media waxaan kusoo galay anoo shanaad ah kadib markaan dhacaan dadku waa la wadaagayo dad badan baa macnayay ka dayriyay dhicitaankeeda okay markaa dhacday ama natiijada lagu soo dhejiyay lagu leeyahay bulo waa dhacday maxaa dareentay wallaahi anigu iskuulka waa iska galay mooyaan dadkaas waxaan iska falaadahay iska dhex galay xiiso iguma sahayn markaan dhacana awalba waxaan u arkay wax macno darro aan iskuulka wax horumar oo maan arkin aan iskuulka okay sanada intii ka horreysay koowaadka labaadka saddexaad gayana ma soo dhacday may ma soo dhicinin intaasoo dhan ma soo dhicin waa jacburus baa laigu geeyay intaasna waayahay maxaa dhaliyey ama dee kalifay inaad caadi u aragtid ma la dhihi karaa koowaadkii bay soo dhacday labaadkii bay soo dhacday markaa waad la qabsatay sidaa darteed baa kaliftay inaad markaa shanaad dhacday inaadan ka warwareyn maya markaan dhacayo meesha waa la iska keegeeyey waxba maba aana aqoon ba anugu weynaan iyo qolof weynan baa meesha laigu geey mahane tartiibta gacanta laigu dhigdhigi jiray dhac caruurtaas kala fadhi marka xoogaa ciyaal korkorsan baa la ii geeyey markii la ii geeyana hadda wataasa awalba gacanta laigu dhigi jiray dhacan dhibo ma arko waayahay sanadkee baad bilowday social media waxaan bilaabay 2019 2019 okay
waxbarashada goormaa kugu dambeysay waxbarashada waxay igu dambeysay adigu haddeer 6 bilood meelahaasaan ka maqanahay coronavirus intuu bilaaban ka hor markaasaan ka baxay waxaad bilowday social media sidaa dadka dhawaajisay 2019 haddaba intiisa social media aad ku jirtay iyo marka inta u dhaxaysa markii aad dugsiga dhacday falcelintii family-ga kaaga timi maxay noqotay family shaqo iguma lahayn awal baa anaa iskuulka iska tegay qofkaas weyn ba ahayd ma qof family gacan ku hayaan ah magaalada anaa iska imid anaa iskuulka iska tegay walaa waxbarashadiina haddaa u dhacana dhib ooma arko awal baa family intuu gacan hooyo gacan qabataan iskuul ay geeyeen anaa iska tegay anaa dabcan inaa wax iska barbarto haddana anaa ku dhacay marka wax walba anay dhib walbaba macnihii meeshaas ka soo gariyay hadduu dhib iyo dheefba wuxuu dhaha anaa isku qabaa waayahay waan gartay marka intaa laga yimaado social media hadda kulley saaxiibo ku garanaya falcelinta lafteeda aad kala kulantay wax caqabada ma kula kulanto iyo diidmo kala ama inay kugu dhahaan iska daa mase jirtaa cid ay family-ga ku dhex jirta oo taageero kugu siisay waxbarashada social media waxbarashada social media mar walba waa la wadaagi jiray waxa ahay markaa shanaad marayay markaan dhacay waxa dhan waa ogaayeen ayuu dee wax u malay jireen wax iska ciyaara oo maaragtay diiwaankeeda aan iskaga ciyaaray u malay jireen ilaa haddana ciyaartaas loo haystaa hadda sax way garanayaan inaad caan tahay ha miyaysan iyagu kula soo hadlin oo amase aysan kula soo qaadin oo ku dhihin waxaad qaaday wadadii saxda ahayd ee ugu fiicneed miyay mise waysan ku odhan dugsigaaga inaad ka tagto sax ma ahayn horta family-ga markii laga hadlo iyo dadka taageerayaasha iyo way soo wici jireen mar walba u dhihi jireen buloy xijaabkii baan aragnay shanaad baan tahay wax macne waxay ayagu wax arkeen in maaragtay wax iska xaraaba ah laakiin family-gana markaan anigu ka harayba dhib igma soo celin ba iskuulkaaga ku noqo iyo aadii midna ima soo oran sidii ma u fadhiyo waayahay su-aalihii hadaladii ugu horreeyey waxaa jirtay wed ama bahal yar oo aad ka dhawaajisay inaad sidan jirto oo caan ku tahay commentiyada ugu badanna dee lagaa soo weydiiyey bal caagadda xaggee bay ku dambaysa intaad reer magaalka noqotay iyadana ma iska daysa maya caagu waa la muraan dhiil baan wada jiray dhiishiina oo ka soo tegay marka caag waa la muraan inaan qaato waayahay maxaa kugu kalifay inaad caaga qaadatid ma jeclaanaysidba mise waa fani aad kaga doonaysid inaad bulshada ku kasbaysid caaga waxaan u arkaa inaan wato faninimo because waxa weye waxyaalahaan sameynayo iyo caaga isku ag waxa weye qof miyi ka yimid haddana weese u baahan haddana biyo cabaal u baahan oo rawaayad miyi intuu ka imaado magaalo imaanaya wuxuu u baahan yahay dee wuxuu jidka kusoo maray jidiin ama biyo u cabo ama wuxuu ku weysaysto qof farma biyo waxaa la yidhi aduu masidida ayaa ku sida marka saas baan mar walba u wataa caaga waayahay daawadayaal haddii aan intaa kaga imaado waraysigii bullaan ku dheeraanay bal markan iyo nashma cudoon iyo bullo maxaa ka dhexeeya ina adeero bullo horta gabar walaashaya xagga taalantagana aan iska mudnahay oo dee jiliinka aan wada wadaagno oo aan riwaayadaha iyo wada jilno laba aada beerkoolima dee waa laba qof oo wada socota haddii aragto waa laba qof oo isfaham baan ku wada soconaanay iyadu waxaan rajeynaya inaan sii socono bullo aad baa uga mahad celinayaayo waa shaqsiga ugu horreeyay weligay gabar lama saaxiibin waa gabadha ugu horreyso aan saaxiibtinimo aan wadaagno bullo waxaan rajeynayaa insha allah inaan sii socon doono waayahay sidaan ogsoonnahay hadda waxaad timaadeen magaalada laascaanood oo aad u timaadeen inaad bulshada ku dhaqan gobolka sool iyo nawaaxigeeda inaad kala qayb qaadataan taalantiga aad u leedihiin ka qoslinta dadyoga ma la dhihi karaa gobolada kale ee somalilan ama soomaali ahaanba waad usii gudbaysaan horta somalilan anigu mar hore waa imaaday mar laakiin laascaano kumaaha ka markii ugu horreysa ku dego waan ku faraxsanaha inaan imaado waan uga mahad celinayaa dadka nagu soo dhaweeyey waan rajeynaya inaan hore usii socono hadii waqtigu noo saamaxa okay waayahay daawadayaal intaas waxaa nagaga ekaanay barnaamijkii intaanaan barnaamijka ka bixin hal su-aal baan labadooda si wada jira ugu dhiibayaa bulshada idinku xidhan iyo nuuriyi media dadyoga ku dhaqan magaalada laascaanood maxaad kula talinaysaan waxaan kula talinayaa intay aad ku sugan yihiin nabad ay haystaan inuu ilaahay usii siyaadiyo waxqabad wanaagsan taasaan ugu talinayaa waaya bullo adiguna aniga iyo bahda nuuriya media taladaad halkan noogu soo gudbinaysa maxay noqonaysaa
adiga iyo bahda Nuri media oo laba shakhsi kala ah waxaan leeyahay horumar baa idin rajeynaya adiga iyo bahda Nuri media waxaan leeyahay shaqadan shaqo ka sii fiican inaan qabatin idin rajeynaya daawadayaal intaas waxaan agaga barnaamij gaar ah oo aan waraysi kula yeelanayno dadyoga caanka ah ee ku dhaqan Soomaali meel kasta degto barnaamijkan uu noqonayo barnaamijka ugu horeeyay oo aan nasiib u yeelanay inaan kula qayb qaadano laba gabdhood oo faniya oo Nashmacudoon iyo Bullo iyaguna oo soo gaaray deegaanka Lascaanood mudooyinka u dambeeyay ku sugnaa intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaas tan iyo intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa aniga iyo bahda Nuri media salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh